بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ولا لهي قالق أهمل بأجوكتين سودا وهذا ومركل فيديو كلا عصب أصحابتي شرفت له قيمة يقدر انت إيجا مدن وحاذين رجينا يا مل بأجوكتين قير يبشبش يبرواقو إنا كنو لاتين ما أنتو حنو وضع قصة ذيني تحانها أهيد شالي يدرات قيبتي ذي سدحات إن شاء الله ما أنتو حين قندون تان قيبتان قيبتي أبودان بيسي وقبقبض أهيد gabadhan walaasheen ah talay naga rabtaa waxa ay qisada ila wadaagtayba oo sababteed ugu weyn waxay tahay in ay tala iga rabto aan idin xasuusiyo qisadan waxay tahay gabadhii aabaheed ninka 60 jirka uu siiyay iyadana isjeclaadeen wiilka dhalinyarada ah oo da'adeeda ah si qasab ahna ay ku guursatay ninkii ay jecelayd iyo qisadeed ugu dambeyntii sababta ay u dalbanayso in tala la soo siiyo soo dhawaad walaalaha qaaliga ah fadlan haday ugu cusub tahay subscribe isaar fiideo haduu ku cajibiyo like qurux badan isaar haduu ku cajibin xataa like qurux badan iska saar aniga ay u baahan maxaa yeelay waxay ka saacidaysaa horta like-ta la sheegayo fiideoga in asxaab fara badan uu gaaro marka igu saacid fiidiyogayga inuu meel walba ii gaaro asxaab fara badan ii gaaro sabab u noqo in ay dad badan igu soo xirmaan waan ku maadsan tahay hadii hore aad ila joogtay waxaan ku leeyahay shukran jazakallahu alif khair inta qisadeen u gudgalin marka hore aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wassalaam allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah qisadeena shalay waxay noo mareysay gabadhii iyadoo telefoonkeedii dib u furtay 2 bilood ka bacdi oon ehelkeedii يعني familkii ay ka dhalatay iyo ninkii markaas qabayba aan la soo xiriirin telefoonkeeda markay furtay waxay ku aragtay message badan codad badan ninkeeda uu soo diray sida uga walwalsan yahay kadib waxay soo wacday oo la soo xiriirtay hooyadeed waxay tiri gabadheedii ma tihid ha i soo wicin meesha aad nooga tagtay waad ogtahay sida aad waxyeesho waa ogtahay ha i soo wicin gabadheedana ma tihid kadib waxay soo wacday aabaheed wuxuu dhahay sidoo kale gabadheedii ma tihid haddaan ku arkan waa ku bareynaa hana ii soo laabanin adigoo ninkaas ugu qabo hal mid ayaa iigu soo laaban kartaa ninkaas inuu ku furo ood iska furtid oo ninkii shalay aniga aan ku siiyey aan kugu daro taasoo kaliya iigu soo laaban kartaa si kale ma iigu soo laaban kartid kadib waa idin sheegay waxaa la soo xiriiray adeerkeedna wuxuu yiri ninkaaga waa nin wanaagsan nin aad muxuu ahay bari ku baraweysay bilkuma baratid ee ahayd amrayna maamada ninkaagan anigu waa bartay waan aqaanaa adeer macaano buuqan ku daba kacay waqtiga badan iska soo afjar adiga ninkaagan aqal gala aabihiin intaan ka badan raali ma noqonayo asaga raali noqon doono iska aqal gala qarashna uu soo diray adeerkay wuxuu la soo hadlay hooyaday la soo xiriiray wax walbana u sheegay anigana wuxuu dhahay iska aqal gal aniga ninkayga ayaan la soo xiriiray wax walba waa u sheegay inuu adeer ila soo hadlay adeerna qarash uu soo dhiibay aan ku aqal galno muxuu ahay adeerka waa la wada hadalnay kadib ninkayga wuxuu dhahay soo laabo familkii ama reerkaagii ku soo laabo marka hore anigana waa baxayaa maadaama asaga iyo iyada awal baan idin sheegay asaga familkiisa ama dadka uu ka dhashay ama qabiilkiisa magaalada ay degan tahay iyada aysan deganeyn oo magaalo kale iyo gobol kale ay degan yihiin oo gabadhaane muxuu ay qabiilkeeda ay u badan yihiin goboladan marka wuxuu dhahay anigu waa baxaa waxaan tagayaa magaalooyinkii ama wadankii ma dhihi kari waa isku wadankii Soomaaliya gudihiisa laakiin wuxuu dhahay waa baxaa waxaan qabanayaa yani magaalada dabcan uga soo jeeda asaga waxaan noo diyaarinayaa guri iyo waxyaabaha aan ku aqal gali lahayn waxyaabaha aan u baahnayn adigana familka u soo laabo marka ninkaas waxay ku tusaysaa nin fiican haduusan ahayn gacantu hore uga qabsan lahay hore u wadan lahay gadaalna ma soo fiiriyeen familkeedana ma tixgeli lahayn marka wuxuu dhahay reerka ku soo laabo guri ayaa noo diyaarinaa kadib wuu baxay wadankiisii uu qabtay guriga ayuu loo diyaariyay kadib wuxuu dhahay hooyo ha ku soo raacdo waxa ay raacay hooyo iyo islaan eedii igu aadan iyo 2 gabdhood oo aan darisnahay waxaa la igeeyay gurigii la ii diyaariyay kadib waxay tiri waxaan galnay nolol qurux badan waa isku faraxsaneen balaayo ma aysan jirin aabahay oo wali calooshiisa ii xun tahay ma ahane
wali wax kale oo tabanay ma jirin waxay dhahday 2015 ayay ahayd dhamaadkeedii 16 bilowgeedii waxaa yeeshay uur cunugayga curadka ahay oo soo halaabi doono marka waxay dhahday ninkaygii wuxuu aaday dalka Jabuuti uu safar gaaban u tagay markuu baxay aniga waxaa la iga qabtay gooski ay aad ii xanuunay dhakhtar ayaan tagay dhakhtarkii wuxuu dhahay waxaa loo baahan yahay qof ku saxiixo anigana marka magaalada qof ma aysan joogin familkeygana ma joogin ninkayga cidiisani si fiican uma kala aqaan dad kalentana ma kala dadka yani magaaladana ma kala aqaan ninkayga familkiisani si fiican uma aqaan marka waxaa jiray nin aan ilmo adeernahay oo magaalo ii dhow markaas joogay ayaan la soo xiriiray waxaan dhahay waxaan u baahanahay in la ii saxiixo goos aan rabaa in la ii buuxiyo goos ay xanuunayo lacagta aniga soo dhiibanayo ii imow waxaan u baahanahay saxiix oo dhakhtarkii aan joogaa marka wuxuu dhahay aniga waa ku jeclaay heblaayay adiga aniga adduunkan ku jeclaay markii ninka odayga lagu sii aadi aada u naxay waxaan islaahay ku soo korto waa ku sugaayay muxuu ay ninka markii lagu siin waa ka naxay haddana sideeda ayaan ku jeclaay waa ku imaana lacagtan gaari ku soo raaci lahay soo dhiib in waan ku guursanaa ninka iska fur hay aniga waxaan kuugu wacday ina ii saxiixdid qarashkaygaan baxsanaa maxay tahay waxaa sheegaysteeda kale waxay tiri ninkan waa nin naag xaas iyo caruur leh wuxuu leeyahay xaas iyo caruur marka waxay tiri waaba la yaabay markaan la yaabay waxaan dhahay maxay tahay waxaa sheegaysid aniga lacagtayda yani aad iigu imaanaysaa qarashkaygaan baxsanaa lacagta aan bixinayo waa lacagtii ninkayga maxay tahay ninka iska soo fur iyo waxa aad sheegaysid adiga ma rabtaa xaaskaaga in lagugu diro oo lagu dabamariyeeyo oo lagaa furo ma rabtaa anigan xaaskayga haddii la rabaa la igu diro adigan haddii aad itiraad xaaskaaga hadda soo fur waa soo furayaa waana kuu imaanaa adiga ninka iska soo fur waa ku guursanaa marka waxay tiri intaas markuu maraayo waa ku dami telefoonkii bologna dhawaan ku siiyey waxaan wacay haddana mid kale oo ilmo eeda aan ahay eedadii ay dhashay markii aan wacay waxaan damcay inaan u sheego wixii ninkaas aan kala kulmay anigoo xaas dabcan yani wax laga xishooda waa qof xaas ah inaad tiraad gurigaygan kuusoo duduminaya ilmahaygan kuusoo dayaca adiga ninka iska soo fur adduunya intee ku taala joogna anaga marka waxay tiri anigoo la yaaban oo rab inaan u sheego sida foosha xun ila dhaqmay haddana waxaan isdhahay maadaama asaga saas u xumaaday ha ka daba xumaanin ceebtan ha sii faafinin meeshaas ku jooji waxay tiri marka waa iska daayay uma sheegin marka waxaan ogaaday ninkaygale inaan wacdo ma ahane qof kaleento inaan dhihin ii saxiix marka waxay tiri ninkaygaan wacday wuu ii yimid isla markii subaxii uu yimid maalintii jimcay ahayd habeenkii dhakhtarku igeeyey dabcan waxay tiri gooskii waa la ii soo habeeyey goos daawooyinkaas qofka uu qaadanayo cirbadahaas lagu duraayo iyo kabaabyadaas iyo waxyaabahaas naag uur leh waa mamnuuc marka gabadhan wixii aan loo weydiinin inay uur leedahay in kale iyo in la weydiiyo ay sheeganin oo qarsatay dadka qaarkood xanuunka intuu ka tambadiyo ay qariyaan haddii la uur maaleed waxay leeyihiin maya maxaa yeelay cunugaas inta badan wuu soo halaabaa hadduusan soo halaabin wuxuu noqonaa cunug xanuunsan oo ilmaha kalenta aan ahayn maxaa yeelay cirbadaha lagugu duraayo sahal ma ahan gabaray ama gabar kasta uur leh ilig haddii lagaa qabto ama goos oo damacdid inaad iska soo bixisid haddii aad uur leedahay 9 bilood adkayso haddii kaleentan ilmahaas waa soo daadanayaan inta badan 99% waa soo halaabaan ama ilmo xanuunsanay noqdaan marka iska jira almuhim waxay tiri gabadha marka in la weydiiyey oo qarsatay inaan la weydiin ma ii sheegin mana weydiinin laakiin waxay dhahday gooskii waa ii soo habeeyey alxamdulilah laakiin waxay tiri 2016 bilowgeeda dabcan waa waqtiga ay uurka yeelatay uurkii wuu iga soo halaabay ilmihii way iga soo dilmeen laakiin waa fiicnaaday waxay dhahday marka uur ayaan isla markii yeeshay uur kale ayaan yeeshay 2016 dhamaadkeedii waxaan dhalay cunugeygii curadka ahay waxay dhahday markaas kadib aabahay ayaa xanuunsaday aabahay aan soo aaday aabahay markaan u imid anigoo cunug wato cunugayga curadka wato waxaan dhahay wuxuu dhahay aniga ninka ku qabo ma arki karo adduunka ugu necbahay ninkaas adigoon iska soo furine
aniga ma qancay waxaan dhahay aabo aniga ninkeyga wax ceeb ahaan ku arkay ma jiro nin xun ma aha ima dilo ima rafaadiyo ima qadiyo wax dhib aan ku qabi ma jirto ninkan waa nin magaaladan laga yaqiinay oon xumaan aan lahayn hadduu xun yahay xataa sidiisa kale qof xun uu yahay dadkaa sheegi lahaayeen dadkan xumaan kama aysan sheegin aniga dhibaato kuma qabo ninkeyga aabo ma iigu faatixaysid ood ii duceysid oo caloosha ii furtid marka waxay tiri aabahay sidii ayuu muxuu ahay igu saamaxay oo caloosha ii furay inkastoo aabahaygii hore aan aqiina uusan ahayn haddana waxay tiri uu isaamaxay waxaanu idhahay waxaanoo dhan waxaa ka dambeeyey adeerkaa oo ninkan kugu daray anigoo maqan oo gadaasheeda ii kaasoo dabamareeyay oo kugu daray adeerka hadduu run sheegayo ninkaani nin wanaagsan uu asaga la yahay muxuu gabdhihiisa u siisan waayey gabdha asagaba uu qabaayay marka waxay dhahday horta aabahay meesha igu saamaxay waxaana jira 2 gabdhood oo aniga ila dhashay oo midna dalka lagu qabo midna dibadda lagu qabo laakiin niman gabdhaha dhibaateeyay ay qabaan oo la og yahay niman kadeeday oo dhib badan oo gabdhaha xumeeyay in ay qabaan aabahay kuwaas kama hadlo waliba gabdhaha mar walba ka dacwoodaan mar walba ka sheegtaan aniga laakiin ninkeyga kama sheegto mana ka dacwoodo dhibaatana kuma qabo gabdhahaasne nimanka xumeeyo looma jeedo aniga ninkeyga loo jeedaa almiim waxay tiri waa soo laabtay aabahay asagoo raali iga ah laakiin sidii la rab aan ahayn oo gabadhiisii hore siduu shalay u jeclay aan u jeclayn waxay dhahday waa soo laabtay waxaan ku soo laabtay magaaladii markaas aan deganaa oo la igu qabay waxay tiri markaas wadnaha la iga qabtay kadib uuraan yeeshay cunugeygii wiilkeygii labadan ku dhalay marka waxay tiri meesheeda iska deganaay waa iska labnaay dhibaata ma qabin kadib habeenada ka mid ah anigoo umul ah aan waxaa maqlay ninkeygii oo naag la sheekeysanayo oo naag shukaansanayo waxay dhahday marka waa naxay naxtin aan soo koob aan la qiyaasi karin waa ka naxay ninkeygii aniga aabahay aan hadalkiisa u diiday ninkeygii aabahay dartiis u ii deyriyay ninkeygii intaasoo jecel aan u qabay kalsooni indhala-aan aan u qabay waxa iiga darnatay inuusan aabahay sidiisa hore ii ahayn iyo isagoo naag ku arkay marka waxay tiri waa ka naxay markii aan qabsaday oo aan weydiiyey wuxuu idhahay naagtan waxay ahayd naag hore oo hortaa adiga hortaa aan la sheekeysan jiray oo xiriir igala dhexi jiray hadirtaan aniga ma rabo danna ma kalihi ya maseerka iska daa reerkaaga dhaqo marka waxay tiri markaas ka bacdi waxaa igalay maseer waxaa igalay uqdad dabcan niyadda waa kaa jabay horto maseer ay galay marka waxay tiri su-aal aniga ma dhaafo maseer aniga ma daayo asagana wuxuu keenay telefoonkiisii inuusan bashaqada kasoo qaadin uu keenin inuu habeenkii kasoo banaanka kusoo daaho uusan gurigii ciyow imaanin uu dhaho salaxan ku maqnaay banooniyaa soo ciyaarayay asxaabaan la fadhiyay saasuu keenay laakiin daahitaankaas habeenkii inuusan telefoonka guriga keenayn ma ahane dhibaato kale kuma qabo laakiin sidiis kale waa nin wanaagsan wuu i caawiyaa wuu ii naxariistaa wax alle waxaan u baahdo kama waayo wuxuu i dhahaa marka waxay tiri hadda waxaan haystaa 5 caruur ah cunugeeda curadkan waxay dhashay gabadhan 2016 waa 6 sano hadda ka hor marka waxay tiri waxaan haystaa 5 caruur ah ilaahay ha kuu daayo ilaahay ha kuu barakeeyo marka waxay dhahday wuu i caawiyaa wax walba ii qabtaa wax walba ii sameeyaa ma afxumo dadka muxuu ahay ma dagaal badno dadka muxuu ahay ama maba ila dagaalo dadka muxuu ahay naagaha dila ma ahan dadka naagaha dhiba ma ahan aniga maseerkii i galay oo kaliya iga bixila marka waxay dhahday wuxuu i dhahaa xataa naag keenso ku saacido guriga kaa saacido howsha kula qabato haddii horta si loo fiiriyo wuu kaa saxan yahay maxaa yeelay wuxuu kaaga saxan yahay in naag waxay tiri marka aniga naag ma jeceli in la isaacido ma jeceli in guriga ila joogo ma jeceli howsheeda aniga haysto howsheeda aniga qabsado caruurtana aniga haysto marka waxay dhahday gabadhan ani waxa ay galay maseer iyo shaki aan iga baxeenin cuqdadan ninka ka qaaday ninkii dadka dhan hortooda aan u istaagay oo may aan iri oo aniga muxuu ahay tayda aan ka dhabeeyay oo aan soo raacay oo aan ku adkaystay
inuu had saas yeelay oo naag aan ku arkay aniga waxay tiri waa ka xumaaday maxaad igula talin lahayd miska joogaa caruurteeda ma haystaa mise go-aanan ka gaaraa talada horta adinka laftirkiina talada dhinaca ka tihiin waa la soo talinaysiin walaashiin wixii ra'yi oo idinkooga gudboon waa kasoo dhehaysiin wixii aniga macquul igala ahna waa ka dhahaa marka koowaad horta talada aniga aan ku siinaya waxay tahay markii la isguursado oo ilmo caruur guriga yimaadaan oo mas-uuliyad timaado wax sidii hore ahaanayo ma jiro xataa dumarka markay cunug dhasho oo 2 cunug dhasho 3 cunug dhasho sideedii hore ninka uma ahaanayso maxaa yeelay waqtiga inta badan waxaa ka qaadanaya gurigii iyo ilmihii inay habeenkii ku dhafarto maalintii oo dhan ay taagnaato cunto karintii dhaqdhaqidii haddaysan guriga qof saacid aysan u joogin marka qof habeenkii dhafrayso maalintii ilmihii ku mashquulsan ilmaha haddana markay yaryar yihiin waxaa lagu yaqaanaa intay 5 sano iyo 6 sano wixii ka hooseeyo way xanuun badan yihiin way jiro badan yihiin mar walba hirgabka kama baxo maxaa arkaysaa mid qandhe iskaga soo boodayso mida kuu fiicnaanayo mida kaa jiranayo يعني جرب ما كبحد أنت علمها شن سنة إلى حسنة كده عفايان مركب هذا قلت كاكسيد هرم أهانيسيد نين كان هدي وأركو لنا عاجي بناي هاي وسيدي هورنتي يعني الدذالكي اهتمامكي إداريالكي يو سولوينتي إسقرحنتي إسعرفنتي يو يعني إن هذا الوقت وهين مركو أركو وقت جاس بناناضي ولنا عاد كبناناضي بنانكو كرادنا qofka wuxuu raadinaa hadal wanaagsan hadal macaan hadal qofka dareenkiisa dhaqaajiyo hadii adiga mar walba aad mashquulsan tahay oo ilmihiisu ku mashquulsan tahay oo xanaaqsan tahay oo dhafarsan tahay oo ninkii aadan xoog u haynin oo aadan la sheekeysanaynin oo aadan waqti siinaynin ninkii waxa u soo haraayo waqti firaaqo ama yani meel ka banaan wuxuu baahan yahay waqti u baahan yahay sida ilmaha waqti ugu baahan yahay asaga waqti u baahan ina waqti siisid ina la sheekeysatid ina muxuu ahay jawi degan yani ilmaha aad waqti hore seexisid ina asaga u haysid fursad oo la fariisan kartid oo aad u sheekay kartid oo mararka qaarkood waay ka sheekaysatiin oo mararka qaarkood aad shukaansatiin adinka guri isla joogtiin iyadoo guri isla joog xataa waa la shukaansadaa shukaansi ma dhamaado yaa loo maleyn shukaansi inuu dhamaado ninkaaga asagoo guri kuu jooga habeen waa la balansadaa guri dhaxis ama ku balans ama banaan ku balanso habeenkaas waa la sheekaystaa waay laga sheekaystaa waa la isku fadfadaa qalbiga wixii ku jira la isku sheegaa waxa arkaysaa xataa waxyaabo kala qarsoonay iyo qofkan wuxuu tabanay inay isku soo baxaan oo la isfahmo oo habeenkaas mashaacirkii dareenkii iyo xaasiiskii soo noqdaan marka ninka horta waqtiisi haduu ku dhahay shaqaala u baahan tahay shaqaalo u baahan tahay maxaa yeelay ilmaha markay yaryar yihiin wallahi guriga hoosh ka badan tahay dhaqitaanku badan maalmo wal dhaqa markay ilmaha yar yihiin diliqooda iyo matagooda iyo waxdaadaadiskooda wallahi ilmaha markay laba xataa ahaysid hooshooda ma yaro marka daruuri waxa u tahay in guriga laga saacido maadaama uu haysto uu awoodo adiga ninkaaga si aad fursad ugu heshid teeda kaleento ninka wuxuusan sidii hore u ahaanayna ku sheega ilmo markay guriga yimaadeen waxa badanayo mas'uuliyadii wuxuu ka fikiraa masaariiftii mustaqbalka ilmaha ijaarki yani guriga markuu ninka kaligiis yahay uusan weli guursanin wax mas'uul oo saaran ma jiro laakiin adigu mas'uul ka yahay ilmihiisu mas'uul ka yahay adiga mararka qaarkood waxa laga yaabaa familkaaga inaad aadaysid oo lacag qarash u baahan tahay mar walba isbitaal loo sii socdaa masaariifa loo baahan yahay asaga daduu leeyahay asaga markuu wuxuu noqonaa qof maskaxdii ka daalan oo meel ku nastaraadinayo adigan aadan waqti u haynin teeda kaleentan ka fikiraayo mar walba horumarkii iyo muxuu ahay ilmihiisa reerkiisa ku biilan lahay ilmihiisa aysan waxa u baahnaan lahayn marka inta uu hamigiisa iyo dadaalkiisa guriga uu yahay waxa yaraanayo waqtiga adiga uu ku siinayo sidii hore ma ahaanayo marka waxa fiican labada qof inay isku cudur daaraan qof walba qofka kale u cudur daaro cudurdaarkaasna wuxuu yahay in qofkan mas'uul hadda saaran yahay mas'uul aan shala saarneen maanta saaran yahay shalay waxa way labadiinaba laba iskaabul ahaydeen bariiskiin iyo baastadiin guriga habarta ka cunayseen mas'uul idin ma saarneen waqti fara badan waa isku hayseen laakiin hadda waqtigii faraha badnaay ma jiro qofkana banaanku ka soo xamaala uu ka keena masaariiftii adigana gurigaad ka xamaalaysa ilmiha ku mashquulsan tahay marka labada qofood jaceelkii dareenkii ma dhimanin laakiin qofka markuu wax kale ku fikiraayo waxa yaraanayo
muxuu ahay ihtimaamkii ama dareenkii ama qofka kaleento waqtiga uu hayay way yaraanay. marka waxaa fiican in adiga hadii lagu awoodo in shaqaale uu ku qabto shaqaalaha lagu qabto oo ka saacido si ninkaaga waqti ugu heshid. adiga ninkaaga markaa waqti fara badan aasiisid waad sheekaysatiin waad isfahamtiin oo habeenkii markuu shaqada ka yimaado waqti u haysid waan kartaa ninkaaga waxa bedelay iyo wuxuu kaaga fogaaday iyo waxa meelaha kale uu ka raadinayo. marka teeda kale waxaan ku sheegaa hadii qofkan horta dad naaga waxa jir hortooda lagu shukaansado naaga waxa jir la dilo kuwa la qadiyo waro yani adiga waxa soo dhan ma qabtid adiga waa laga qariyay wax laga qariyay hadaba kicin naagaha telefoonada rag nimankooda baarayo qalad waayo anaga fiir anaga dumar hadaan nahay xataa marka familkaaga la hadlaysid hooyada la hadlaysid walaalaha la hadlaysid ma jeclid naft adi xataa ninkaaga inuu wax walbo aad ka hadlaysid inuu dhageysto. marka adigana ma ahan laazim ninkaaga wuxuu ka hadlayo ama wuxuu qoraayo ama wuxuu diraayo ama wuxuu sheegay ina ogaatid laazim aha ninkaagana milkigaaga ma ahan isdeen yani talaab kasto qaadayo waa ina ogaado wax walbo sameeyna waa ina ogaado bil aadan waay bashar waay qofkii in neefta lagu celiyo oo la ceejiyo oo dhinac walba looga yimaado oo wax walbeeta faragelin lagu la sameeyo xornimo si qofka marka xornimo siisid oo adiga isku mashquushid adiga asnadiifisid aad carfisid oo maalmo cilaanka ku marsan yahay oo qurux badan aad gashan tahay qofka asaga soo raadinayo oo sheeko ku bilaabayo oo hadii xataa uu arko inaad ka sii fogaanaysid muxuu ahay soo jiidasho iyo sheeko iyo muxuu ahay inuu ku fadfado ama qalbigiisa wixii ku jiro ku sheego sagiya bilaabayo qofka wallahi waxa hadalka looga muxuu ahay looga dhuraa ama looga keenaa in laga aamuso ina shibka dhahdid ina hooshada qabsatid inaadan warka ku badin qofka asaga warka ku bilaabayo laakiin hadii su'aasha ka badisid qofku ka cabsanaa wuxuu ka galaa muxuu difaac. marka hadii telefoon laga qariyay hadaba kalin reerkaagana dhaqo caruurta haystid ayaa wax walbo ka muhiimsan caruurta ka muhiimsan. marka adigoo familkaaga shalay ninkan aysan kula rabin maanta shar caruur meel aad ula soo noqotid ma joogtid. marka reerkaaga dhaqo ninkaaga duu shaqaysanayo ku biilanayo naagna maanta muxuu ay yani muxuu ay uu qaba aysan jirin oo meel aysan deganayn wax laga cabsado iyo wax laga cararo iyo wax la murgooda ma ahan. reerkaaga dhaqo ninkaaga kasbo gurigaaga hayso ilmahaagana korso barkintaadan dheerayso. waan ku salaam walaashii qaali qisadeeni maanta inta si ku egtahay talana soo sii talada aad iyo aad ugu dheeraaday tala soo siiyo walaashiin wixii aan ka tagay adinka soo dhameystira. waan idin salaamay walaalihii qaaliga ah meel baa joogtiin fadlan subscribe isaar fiidoo like qurux badan isaar iyo si share gare hada ii awoodid aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mac salaam asxaabta sharafta leh.